Asalaamu calaykum asxaabtayda kusoo dhawaada channelka aad iyo aad aa u mahadsantiin walaalaha subscribe-ta noo saara kulligiin waa idin arkaa jazaakallahu khayr. Waxaan rajaynayaa inaa videogan comment igu soo qori doontaan waxyaabaha ka faa'iideen. Maanta waxaan ka hadlaynaa parental anger ama waalidka xanaaqa badan. In la xanaaqa horta waa caadi, waa feeling ilaahay nagu abuuray. Haddii aad tahay qof xanaaq badan laakiin waxaa loo baahan yahay inaad isxakamayn kartid oo iska celin kartid inaadan gacan qaadin ama inaadan qaylinin. Halkana marka rabaa inaan kugu baro qaababka u mari kartid insha Allah. Okay? Waxaan rabaa inaan kusoo xasuusiyo mar walbo ilmahaaga adiga aa ka aragto inuu kaa xanaajinaya. Horta waxaan rabaa inaad soo xasuusiso ilmahaas inuu qaladkaas galo ama waxyaabaha adiga markaas kaa xanaajinaya inuu sameeyo kuguma dan lahayn oo adiga dhibaato ku gaarsiiyo. Waxaa keenaysa ilmahaaga maskaxdiisa sidaasa. Ilmahaaga maskaxdiisa waa immature. Maskaxdiisa ma korsano. Okay? Marka anaga markaan ilaawnin oo ilmaheena ahayn qof weyn oo anaga aan isku level nahay, waxaa dhacaysa inaa adiga markaas is ilaawdid. Waxaan ilaaweynaa responsibility-ga ilmahaas naga saarneed waalid ahaan. Markaas anaga waxaan u baahan nahay inaan isa soo xasuusino ilmaheena inuu caawinaad nooga baahan yahay, ilmaheenana inaan ku xanaaqin. Adiga marka heerkaas inaa gaartid waxaa loo baahan yahay inaa adiga emotionskaaga regulate garaysid ama dareemahaaga inaad ilaalisid iyo dhaqankaaga. Ilmahaaga markii uu kaa ooyo adiga markaa waxaa dhacaysa xanaaq dartiis inaad ku qaylisid. Markaas basically waxay kusoo xasuusinaysaa dhibaato adiga hadda ka hor aadan resolve dareemin. So basically ilmahaaga mar walbo adiga kaa xanaajin karo waa mar walbo adiga aadan xakamayn karin xanaaqaaga oo kusoo xasuusinaysa dhibaato hore kusoo martay. Marka maxaa loo baahan yahay inaa adiga ka fakartid qaabkee aanay isku dejin karaan. Okay? Goormee ilmahaa ku xanaaqi kartaa? Goormee ilmahaa ku xanaaqi karin? Waxaasoo dhan waa inaa ka fakartid. Waalid walba uu xanaaqaa. Qof kasta uu xanaaqaa. Sidaan laakiin u dhaqmayno waayo waxyaabaha lagu kala duwan yahay. Maxaa keenaysa horta inaan xanaaqno? Pressure badanaan saaran waalidiin markaan nahay. Mar ilmihii caafimaadkoodan ka fikiraynaa, mar ilmihii lacagtoodan ka fikiraynaa, mar iyaga inaan kala celidaan ka fikiraynaa, mar inaan cunto usoo diyaarinaan ka fikiraynaa, waxyaabo badanaan ka fikiraynaa. Waxyaabahaas oo dhan marka waxaa keenaysa in adiga sometimes jab isku noqoto arrinta. Adiga marka stress badanaa qaadaysaa. Markaa stress badan qaadid maskaxdaada ma fikiri karto. Markaas isla markaas waxaas leedahay aniga waan fail gareeye. Waalid fiican miihi, hooyo fiican miihi, aabba fiican miihi. You know, guilty aad dareemaysaa. Dadka qaarna waxay dareemayaan dismiss. Waxba emotionskaas kamaba soo qaadayaan. Ama mararka qaarna waxay soo xasuusanayaan waxyaabo ayaga markay yaraayeen lagu samayn jiray. Okay? Muhiim maxaa ku ah marka adiga inaa horta aqbashid in lagaa xanaajin karo, ilmahaagana ay yihiin ilmahaaga, meeshaasna dhibaata ayna ka jirin. Mar walbo isleedaha maskaxdaada maxaa ku dhacay inaa isdejin kartid. Okay? Waa caadi, waa normal, is okay. Just fahan qaabka aad u dhaqmi lahayd. Okay? Marka ilmahaaga ay qayliyaan, yaa? Ay adiga kaa rabaan inay kaa helaan support. Oo markaas adigana ilmaha ku qaylisid. Waxay dareemayaan rabaa inaa halkan kuu sharaxo. Iska soo qaad maanta adiga in lamaanahaaga uu adiga kugu xanaaqay. Haddii aadan dumar tahana inuu ninkaa kugu xanaaqay, haddii aad rag tahana inay xaastaaga kugu xanaaqay. Okay? So marka qofkaas kala imagine marka hadda marka indhahaaga isku xir qofaa adiga kugu xanaaqaya, qofkaasna wax badan uu kaa weyn yahay. Waxaadna og tahay qofkaas inaad u baahan tahay inuu cunto ku siiyo, inuu dhar kuu gado, inuu guri ku dejiyo, in meel safe ah iyo meel nabadgelya inaad ka heshana uga baahan tahay qofkaas, inuu qofkaasna ku caawiya u baahan tahay. Qofkaasna waxaa u baahan tahay jacaylkiisa. Qofkaasna waa qofaa ku kalsoon tahay. Marka hadda dareenka aad dareemaysid adigoo intaasoo dhan qofkaas ka raba haddana qofkaas uu kugu qeylinayo uu qofkaasna qof kaa weyn yahay
dareenka aad dareemaysid ku dhufo kun jeer sidaad dareemaysid hadda ilmahaagana sidaas ii ka daran uu dareemaa marka adiga ku xanaaqdid because ilmahaaga adiga waayo qofka uga baahan yahay wax walba oo hadda tilmaamayay adiga waayna qofka ilmaha ka weyn adiga waayo qofkuuna ilmahaas jecel yahay marka adigoo intaasoo dhan qof u qaba hadduu qofkaas kugu xanaaqa dareenka ay leedahay I hope inaad dareemi kartid marka maxaa dhacaysa sometimes challenge ay kugu noqonaysaa hadalla xunaad ku hadlaysaa ilmihii maybe waa u gacan qaadaysaa maybe waa ku qaylinaysaa yaa ilmahaas marka waxaa ogaataan qalbiyan waa dhaawacde maskaxiyan waa dhaawacde yaa in ilmahaaga aad disho iyo in ilmahaaga hadal xunaa ku dhahdo markii la baaray waxyaabaa soo bax waxaa waaye in ilmaha markii maskaxiyan loo dilo hadallo xun lagu dhaho inay ka daran tahay in la dilo laakiin xitaa ma wanaagsana aaday u xun tahay marka adiga waxaa loo baahan yahay inaad isxakamayn karto ilmaha lagu qayliyo oo la dilo oo negative affectka lagu abuuro markay yar yihiinna lower IQ ay haystaan maskaxdooda lower IQ ay haysataa so caqligooda wuu yar yahay waxbarashada si fiican uma fahmaan hadhow markay weynaadaanna relationshipka ama xiriirada ay samaynayaan badanaa ma aha xiriir wanaagsan ilmaha badanaa la dilo markay yar yihiinna ama lagu qayliyo ama maaragtay qalbiga laga jabiyo xitaa waxay u bataan ilmo balwad leh inay noqdaan markay weynaadaan because maxaa dhacaysa inayna saaxiibo xun la kulmaan saaxiibadaas iyagoo ka raadinayo wanaag in actually ay xumaato la kulmaan qofka iskama celin karaan marka adiga sidee isku caawin kartaa videoga xigaa kaaga sheekeynaya insha allah so part 2 daawo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu